السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالا كدوادة تلفزيون عالمي SBTV حرمتي إسلامات دالكن كينيا. داود يالا تدوات كان وركن عيسى مساسي أنا مختار حسن مختار كان بعز قضبض ورك داود دان تنامي كمدينا. إذا ماذا حق دالك الصومالي يا سنة جوري تدوات نشانات لإنقاذ مقالة مقدسة دالك الصوماليا. إذا كاسم الأسعاسي كون سقال بقول أفرتني سدحدي. madaxweynaha dalka Mareykanka mudane Donald Trump ayaa ka dhawaaqay in ciidanka Mareykanka dib loo ankanaga doono dalsho ayagoo ku guuleysadeen la dagaalanka kooxaha Al-Daesh iyo waliba ka suganaayeen dalkaasi Syria. magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa doorasho ka dhigay doorashadaas oo ku guuleysaday madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed oo lafta gareen. waddanka Suudaan ayaa mudaharaadyo ka dhigay iyadoo in badan ka dhimadeen qaar ka mid ah ka dhaawacmay. haweenka beelaha jareerweyne ee ku sugan magaaladaas Kismaayo iyo shirin isku kooyan iyo shirkaasna ka casuumeen ururka dhalinyarada ee jareerweyne. xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalkani Kenya iyo adweeyeen doorashadii dhawaantan ka dhigay maamulka Koonfur Galbeed iyadoo doorashadaasi ka hadaleen سيابين إن شاء الله رجعهم في فيديو. داوديال أنت اسمع أنا قدبض ورك دوران بس أنت يقول جالنا برنامج كان يورك كلا SBTV أصلاً كدودا قدر هذه قبل شو. حيسنتا SBTV. وقتها داوديال أنت أصلاً قدومنا قدر كاس هذه قبل شو عطنا أو كداودايتين تلفزيون كعالمي SBTV. عطن ورركي أو في السن. xeryaha qaxootiga Dadaab ee dalkani Kenya iyo adweeyeen doorashadii dhawaantan ka dhigay maamulka Koonfur Galbeed iyadoo doorashadaasi ka hadaleen siyaabihiin insha Allah ragayaan fikradiyo. haddaba dadka shacabka ka dhaqan xeryaha qaxootiga Dadaab iyo si diiran handweeyeen ayagoona ka tilmaameen doorashadaas in ay tamid la sugay in badan oo dalkaasi maamulkaasi Koonfur Galbeed. haddaba dadka shacabka iyo ka baaqeen in dawladda si wanaagsan la shaqeeyo madaxweynaha cusub iyadoo Cabdicasiis Xasan Maxamed ay mid howlkar ah iyadoo dawladana in badan aan shaqeey. haddaba ayagoo ka hadaleen warbixintaas nila daawada. waxaan ka mid ahay odayaasha qaxootiga xeryaha Dadaab ku xareysan xawooyo ninkan la doortay loo doortay Koonfur Galbeed. horta anu nin Soomaali ah oo jaga loo doortay oo shaqo loo dhigto Soomaaliya inaan carado aniga waan nacba. waxaan ku baaqayaa horta dadkii dhintay waa dhaweyd rabshada ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto dadkii uu ka dhintayna samir yeeman Allah ka siiyo. inta markaan ka gudbo waxaan isleeyahay nin Soomaaliyeed baa tahay dalka maanta meeshuu ku jiray xaaladda meesha marin wada tahay si kastaba aad ku imaatay hadda nin la doortay baa tahay oo madaxweyne ah waxaan isleeyahay dalkii wax u qabo dadkii sinaantus markii ugu horeysa waxaan doonayaa horta dadkii dadku ka dhintay ee xaqdarrada loo dilay inaan u jeclaysiiyo intii dhimatay Allah u naxariisto lafta gareen waxaa soo doortay dawladda dhexe ee federaalka ah heer Koonfur Galbeed ma dooran sida aniga ra'yigayga aan qabo aniga maxamuud ahaan ra'yigayga saan qabo xaq iyo xalaal midna ma ahayn nin la soo tuuray oo kireysan baa la soo kiriyay kuwa doortayna ma ahayn xaq iyo xalaal kuma ay dooran waxaan dhihi karaa doorashaasi doorasho xaqa ma ahayn xalaal ma ahayn wax ka jirana lama arko laakiin waxaan Ilaahay ku mahadinayaa oo ma taqaana yani Ilaahay uga mahadnaqayaa sidii hadda Koonfur Galbeed ay wax ku socotay baaki maxaan ku sheegay mudaharaadkii iyo dadkii dhimanayay iyo nabadgelyo xumadii hadii lagu soo dabaaray nabad oo wax kasta waxaan noqotay dhoobkan gudumada la dhoobay iska doortay waan nabadgelyo dadkii baa nabad helaya caruurtii haweenkii iyo odayaashii iyo dadkii deegaanka ahaa nabad bay helayaan. waxaan u nasab sheeganayaa magaalada Xudur gobolka macnaha hadda doorashada ka dhacday ee Baydhabo marka ay sidaa ay tahay waxaan u arkaa doorashada ka dhacday magaalada Baydhabo inay tahay magaalada Baydhabo dadkii u dhashay ama Koonfur Galbeed u dhashay in laga faramaroojiyey doorashadii xaq iyo xalaal ahayd oo la sameeyay
dad gacan ku shimisa oo aan macnaha ay u baahneen meesha la yidhaahdo baydhabo aysan u baahnayn. waxaan marka hore halkan ka salaamayaa saaweynta reer baydhabo ee koonfur galbeed. waxaan u hambaleynayaa dadaalkii dheeraa iyo isriiriixii faraha badnaa kadib inay xaqoodii soo dhacsadeen heleenna madaxweyne soomaaliyeed oo koonfur galbeed. mar labaad waxaan anoo ku hadlayaa magacayga ku adkaynayaa shacabkaas maadaama Soomaaliya isriiriix fara badan iyo isqabsi fara badan iyo wax kale sheegasho badan ay jirto inay macnaha ka tanasulaad fara badan sameeyaan ku kalsoonaadaan madaxweynahooda cusub ee dhalinyarada ah ee aqoonyahanka ah ee muwaadinka ee hadda u soo kacay. waa tahay daawadayaal weli meenii kala socotana telefishinka caalamiga SBTV haatan wararka kale oo nasiin ka targalnaya mid ka mid ayana munaasabadan oo xariga looga jarayay dugsiga sare ee Jarajila Secondary School oo ka mid noqon doona iskuulaadka sarsare oo ku yaala xarada qaxootiga ee Xagardheera ayaa waxaa munaasabad xariga looga jarayay loo qabtay isla iskuulka dhexdiisa. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda waxbarashada dalkani Kenya oo horeysa wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya, hay'adda UNHCR, mudanaha laga soo doorto baarlamaanka deegaanka Faafi iyo waliba OCS-ka deegaanka iyo madax kala duwan oo ka kala socotay xarada qaxootiga Xagardheera iyo qaybaha kale ee bulshada. hawshan wanaagsan soo abaabuleen fikirka deegaanka Kenya laakiin insha Allah ta'ala anaga waxaan ugu leeyahay dambistaag iyo taageerin cilmigana waa noo abuuray insha Allah ta'ala anagana waxaan ugu leeyahay mutaqaanay cilmiga aan keeno cilmiga ku dadaalo insha Allah ta'ala jiilka dambe ee dawladaha hogaamin doona inta soo macna diinaha yiraahdo laakiin insha Allah ta'ala waa hijra taaganay anagana maanta waxaan u faraxsanahay iskuulka ugu soo kordhay maadaama iskuulaha yareeyay cilmiga aad buu lagu hooseeyay. waxaa jira dad qaar oo iskuulaha geysan lahayeen private-ka oo laakiin nafaas ka helin iskuulada private-ka oo ilmahooda diyaar lahayn in cilmiga ay ka bixiyaan lacagta. midda kale iskuulaha public-ga waxaan oo sababnahay inay ilmaha ka bateen meel ilma ka bateenna quality education maaha sidaad fahamsantihiin. Naona polisi kama ni adui wako, polisi ni rafiki yako, polisi ni kama ndugu yako, polisi ni kama ndugu yako, polisi ni kama mjomba yako, polisi ndiye anafanya uweze kufanya shughuli yako hapa bila shida yote. Sitaki nichukue muda mwingi sababu sherehe ya leo ni sherehe tofauti kidogo. Ile kitu ningesema ya kwamba ile kesi kidogo kidogo, mimi nikiwa station pale napata kesi kidogo kidogo sana. Horta iskuulka maanta la furayo iskuul yar ma aha magacu wato waa magac qaali Jarajila Secondary School. waxaan malaynaya magac yar ma aha iminka inaysan fahamsanin la arkaa laakiin anaga agtayna magaca Jarajila waa magac weyn, magac yar ma aha. Jarajila waa district waa magac weyn, waa division. haddana waxaan rajaynaynaa inay district noqoto sanadka cusub Allah ma yadin. waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa walaalahayda oo ku fikireen magacaas oo magac weyn ahay. si gaar ah marka lagu leeyahay shacabka ayaa samaystay. marka waxaan leeyahay maadaama ay martidu fara badan tahay hadalkuna iska kooban yahay xaqiiqa waxaa aad iyo aad waxa mataqaanaa lagu farxaa dhalinyaradii yareeray ee halkan ku dhalatay ama ku kortay oo iyagoo la daadiyay gacanta la keenay ama iyagoo yaryar halkan keenay hadday hayeen hadday xagga deegaanka yihiin oo host community ka yimaadeen iyo hadday xagga qaxootiga ka yimaadeen in ay maanta yihiin hogaamiyaal iyo curiyaal iskuulo kale intay ka aflaxeen iskuuladii mataqaanaa halkan laga sameeyay. Macallin Garaad waa maamulaha guud ee iskuulka Jarajila Secondary School ee sanadka soo socda 2019 uu bilaabi doono diiwaangelintaas galaasida koowaad, labaad iyo saddexaad ee dugsiga sare. waxaana halka uu ku soo jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa. A new chance for new beginning again. Remember that in life
Everything is seasonal. The good times will come, and the snow melts, and the sunshine of spring will surely shine again. Today is a great event to get together to celebrate and watch the spirit of Jarajila that's shining all over. It's a great day to all of us to be part of the remarkable moment to witness the official opening of Jarajila High School by the Minister of Education here with us, our district education officers, to facilitate the recognition of this school today. Once again, our school is honored to welcome the presence of distinguished leaders, delegates, distinguished guests, both domestically and national, and reports from different news agencies. Ladies and gentlemen, congratulations on starting a new journey with us under the name of Jarajila Secondary School. Abdirazaq Kahiya Miftah, SBTV, xaryaha qaxootiga Dhadhaab. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la aasaasay 20 bishii December 1943 iyadoo sanadkan 20 December la xusay sanad guuradii 75aad ee ka wareegtay xilligii la aasaasay ciidamada booliska dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay munaasabada la ka qabaday magaalada Muqdisho oo ka sheegay in iyo wax ka qabada doonaan dhibaatooyinka haysan ciidamada dalka Soomaaliya. madaxweynaha dalka Mareykanka Mudane Donald Trump ayaa si lama filaan ah ka dhawaaqay go'aanka ciidamada Mareykanka oo ka baxayan dalka Syria. Aqalka cad iyo difaaci go'aanka madaxweynaha si yeeshee ma sheegna sababta sheentay in la ka dhawaaqo go'aankaas iyo in guul la ka deeri kooxaha Daesh. Go'aankaas oo si lama filaan ah laga warheli saraakiisha difaaca diblomaasiyiinta iyo sharci dejiyaasha Mareykanka iyo Donald Trump iyo ka shaaci qoraal bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay usoo ka sheegay Daesh ma inkaga adkaanay dalka Syria iyo ka qori. Madaxweynaha Donald Trump mayna bilaawo doona in ciidamada Mareykanka dib hanka elino dalsho iyo oo ka gudbi doona wajiga xiga ee ololaha iyo ka dhay hadana mar kale. Afhayeenka aqalka cad ee Sarah Sanders oo intaas iyana ka dartay guusha la ka deeri oo macnashana in ciidamada isbahaysiga iyo gabigabeeyaan ololaha militariga ee Syria. Sidoo kalena afhayeenka Pentagon iyo bayaan ka sheegay in ciidamada isbahaysiga Daesh iyo ku xureeyaan dhulalkii iyo haysadayeen hase yeeshee ololaha ka dhan kooxdaasi oo wali indhamaana. mudanayaasha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dooradeen madaxweyne cusub doorasho lahan ka horjeeda Mukhtaar Roobo Ali Abu Mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta anka cad oo linka taageersanay magaaladaasi Baydhabo. wasiir dawladii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka Abdiaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo nagadii madaxweynaha lamaad ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed usoo wareegi koowaad 147 xildhibaan oo codsho ka dhiibadeen oo heli 101 cod ka mid ah xildhibaanadaasi in ka badan 2 meelood 3 meel codadka guud. madaxweynaha cusub ee Abdiaziz Lafta Gareen iyo hadal kooban jeedii doorashada kadib oo ka ballan qaaday in uu wax ka qabado doono dhibaatooyinka ka jiraan gobolka isagoo shacabka Koonfur Galbeedna ka codsaday in dawladda cusub la shaqeeyaan. gobolada ka badan dadka muslimiinta ee dalkani Kenya iyo ka socda ololo siyaasiyiinta la dooradii wadan iyo oo ka aadan in sidii linka diyaar garow lahay tirkoob la sheegay in dalka Kenya la ka qabado doono sanada foodano hay ee 2019 muslimiinta dalka Kenya iyo wadan ololahaas tirkoobka oo la ka aadan 2019 muslimiinta Kenya haatan la ka qiyaasay ilaa 2 milyan iyo ka doodayaan in tiradaas sax ahayna iyo sheegeen tiradaas in deeras ilaa 4 milyan oo qof ah. Ankiraan 6 qof iyo kala ka dili 10 kalena la ka dhaawacmeen iyo mudaharaadyo ka dhiyan dalka Suudaan kuwa oo ka dhaladay sarookaca kokoy qiimaha rootiga iyo waliba shidaalka. mas'uuliyiinta gobolka Qadaariif iyo ka dhawaaqeen xaaladda degdeg ah mayna la ka rogay bandow la ka bilaawo 6
maqribnimo ilaa iyo 6 subaxnimo booliska dalkaasi Suudaan iyo sheelay iyo maalintii Khamiista ee shalburiyeen dadka dibadbaxyo ka dhigayeen gudaha magaalada Khartoum ee caasimadda dalkaasi iyo magaalooyinka kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo la magacaabo Mubarak Al-Nur iyo booliska anka baaqeen iyo isticmaalna xoog xaq dhaaf ah si iyo anka shalburiyeen dadka dibadbaxyada dhigadaayeen mayna intaas ka sheegay in dastuurka dalkaasi uu muwaadiniinta xaq u sii in iyo dhigadan dibadbaxyo mayna sidoo kale anka baaqay dibadbaxyaasha dadka dhigadaayeen in iyo burburina hantida dadweynaha iyo tan gaarka baleenley isla markaasna iyo samaysadan dibadbaxyo nabadeed barnaamijka SBTV daawo dhacdooyinka la xiriira bulshada SBTV barta bulshada baantu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ديالكم صدقاء برنامج كي تطبعات الله سنين كبرنايتن إذا عدى أما تلفزيون كعالمي SBTV استوديو كيالي قبل غفرمون تيدل كانيتي مريكن كا توبيقو نسقاadaan toddobaadkanite ka saabsan barnaamijka iyo may kamid ay doorashadii koonfur galbeed ee toddobaadkanite ka dhigay magaalada xarunta Baydhabo ee gobolkaasite baay dalkaasite Soomaaliya marka muqtar America adiga ila dareerayti idaacadaha dhamaantiyo live maqal iyo muuqaal waliba ahaadaba marka doorashada koonfur galbeed marka sidee bandhidi ayna ku guuleysadii hadarkanitay hortaniyo aadaan ka maadsanta markii ku horeyta doorashada koonfur galbeed oo runtii 88 baasan jiitantii muddo badan as dareertii anuu balska jiidiyo wana la hadalhaay idaacadaha kolen sida dadka macna shaashada aan ka muuqanta mayway ninka dadka reer koonfur galbeed inta badan yaani may ka dhagaxayeen ama bak hadalhaayeen in asaga muqtaar roobo ku guuleysado oo yaani eedi idlan ka hadalhaay ayadoo waliba badan bal mudaharaad sanaska banaan bahay oo dad badan lan hirhiri u dartes marka arantii mayway eedi idlan ka jahwareeri hatta mayway dagaali oo liska farsaari meeli تفنيل نصدابي أذكرته قفا كوفي مركا وحي أهاتوبا دولتي يا معناه حوار يا سياسيين هجا يا إيدي إدنس كجحوريرن بلس أرنتي مركي نكا سي مختار روكي يعني لهيري أو دولة ده مركي هيرتي ولي لسجيدو بماي كس بيهوتي إن يعني لندورو نكا تحاين مدن عبد العزيز حسن أو كما عديري لافتجران ولي هبل ياي مدورة ولكن صاحب كي مدن عبد العزيز حسن محمد لافتجران جلوس كديري ميجن هو بترتم أما بني آدم ترتم لا نقول إيش ده كده مش نقول إيش ده تدراتي ولا أقوله نتيجة أنتوا بيجي أقوله ولا هاي تقولوا شحال عليه وهاي وقتي دول شحال عليه قبل كبيري تدراتي كنا أسرنا ونزل أيام waxaan marka ugu horeyso u mahadcelinayaa xildhibaanada koonfur galbeed ee doortay aad iyo aad u mahadsantihiin iyo intaan dooranin waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka oo shaqo nadiifa oo cadaalada iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo intii aan inta joogna aan codsanaynay qabtay ayagana waa u mahadcelinaynaa guddiga doorashooyinka waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoonkii shaqadan qabtay u dhabar adeegay doorashada ayagana waa u mahadcelinayaa waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa saaxiibadaydii kulliygii aan tartannay musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay magaca ilaahay uga qaadanayaa ugu dhaaranayaa xilkeyga inay xilkeyga u gurto daacada ku jirto ay ku jirto danta dalka dadka muhiimka diinta howlana dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed dhaqanka iyo shuruucda kale
marka dadka lama filnaana kanagati weliba marka may hanuun laha hadal haaya ninkan iyadoo meelan isjijiid ka dhii gaabno ee hilkan yani ka wadee sidee markaasi ka dareeriye runtii hadallo badana dareeran idaacadahana eed baaba ka hadalhaayaan arrintaasi marka ma lisdhe karo guddiga doorashada qabanqaabiyanka madax adeegeen baaqi odayaasha dhaqanka oo koonfur galbeed iyo xildhibaanada qaarsho ee koonfur galbeed oo ka baaqeen in doorashada dib lan dhigo ilaa la kasadeeyo Mukhtaar Roobo marka arinta in oo la kabuubsi managadaas Mukhtaar Roobo runtii niyow may way su'aal fayl way markii ada dayto may way horta deelyaal dareertay dowladda dhexe marka may ka dareemasa in ayada markaasi adeegsatay power sheh ama siyaasadii hore ka barnaamij marka ida bedeli ama actionki iyo dadweynaha ku suudaan ay action kale ya meel la dheeri runtiina hadii aad fiirido maana fiirido maana dowladdan Soomaaliya ama siyaasiyiintan Soomaaliya marba wajh subalat marba wajiga cusub ay dalata ayaa la ku tusiya wana laakiin ka dhawaajiya kastay did ama diido ilaan markii aad hada fiirido maana matala ahaan kasto saqaato doorashada Kismaayo hada qorban uu iska jijiidi dagaal badan ka dhii dad barko ma dhaan aamin midowle ma nagado ilaa hadda u si haay kastay dowladana ka qasbanaatay inuu maana aqoonsato kastay marka may way sidii aan ilaata marka ninkan in ka qasbanaadan يا لك يا مركا دتك شعبك إن أي راه إلا نكان أسجى يا دولة وكيلتي أسجى يا برلمانكي كقوليسي أسجى يا معنا حلكي هاي أسجى يا شعبكي أنا دولة فدرال أنصحيده أصدقائي تنقص أم باهول نبود كرادة ما نكلم مدريري كره مركا إلا نك قصبناس إلا دتك هرت ما يروانا هرت والتر كستي نكان حديث والتر شاب وتصيو ووعديو ودناديو مركا دتك شعبك ودجيو oo yani qodbad oo dhanba taabadaas wal tusna suubiyo meelkii habayna jeclaana iyaga meel rabana dad hogaamiyo oo yani dareeriyo okay kasna hada taasitay gudaha aan sii galaan wadaad ka dhahayaan Mukhtaar Roobo Mansuur oo kamid ahay hogaamiyaasha sare ee al-shabaab kamid ahay hadda ma iska sharaxay in uu kamid noqdo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed marka هداي دولة مركز إسكسديبي وتيل عفيب عايتي بقص أو شعبكي سياسيين وسكمل نجدي بقى هايبا مركز هذا مركز دورة شدان دي اللي ما يشيني إن الدولة دي سياسة دي سن استعمال قبضته هيرتو هرتنيو وسوى ولا بالشعبكي هنتي شعبك هرت ما يوي هذا فرق بدن يا هذا الحياة مركز أديك هر نحقله إيد ولا انكشل أوجاتو سيدي ولا انشل هذا لا قارشة يا ما يشيء وأنا نكان مركز هرب الدولة إيدا certificate سيتي إن أسير دور الشركة قبل قالوا كرو إذا بس سيدي هذا لا بدنا جراين لون أقلادي كود لون أقلادي بس هذا لا قارشة سبحان الله ما يشيء أنا إن يعني مركي هدي إن كان لعل أسير قيب قالوا أما بقيب نقضوا دور الشدة محل الكاسي أو كفر قلبات أو حلوين قبضوا يا معنا ما هذا لا برشلة كده دميوه إن دولة ده دنك باش عالم كشيء إن عدادس وين كوي كراده وايو ما يلينا نن أو شلي أو يعني إن هاي إن أو معنا تيم برفولي هذا المركز إن صدق فديده إن باش عالم كرتيو غير منين نوريت مركز دتك ما يدهوا أنا إن dadkeena Soomaalida iska dheeroytan hadhooyaan marka taas la qafaynaya markaas daraadii sumcadii dawladda federaalka ay tameel ku dhamoonto saas daraadii marka hadalada qaarsho oo bulshadu ka soo baxooya inta badan hadal haayaan oo leeyahay markaasayto marka dawladda dhexe may ku codsatay ninkaas in asaga iska dhaafo maadaama beelaha caalamka oo dhahooyaan arintan dhibaaseen ku kooye كروجا إن كان يا ما يديجي معنا سدي أو هذا لا سيلان هذا هاي إن أرنتا سيتو أو لانويري أسيجنا مركا ما يشيء أنا إن لده معنا دولة العالم كما دولة ده الشيء أنا أرنتا سيتو مروا صوبته إلان ما يروي شعب كإرسانية سياسيين كإرسانية إن سدي ونصعتا ما يوي كمد نقد كور حدي بمركا أو يعني أو دتك بدورين إرسانية مركا ولا أوريو ملاوي إلى سوق لصعدت ما هو إن دولة الصومالية مربى جيم سوى لكن ما ذكروا إن جبلان نفتر شب هجان كسر الشباب كمت أهاي وأنا هذا حلك هاي مركا
malis dhakaro mukhtaar row macnaha qabiil dartis iyo la gacan bidixeey mal dhakaro miya saasa lan qabadi lan hiri lan ka hor istaagi inuu soo kamid nagado waayo si la socoto Soomaaliya qabiil iyo eedii dhulka aan ka daray marka nimankan jarar weyn la dhahaw ama raxweynta lisdhakare in iyo balan lan diidan in xil sare ka qabadan gudaha Soomaaliya hadalada qaarsho ay may sheegoona bulshada eedii iska hadal haayeen taa dad may aragay aan codad isku duuway oo yani bulshada sanbandhigay sheekada tamar ma iska bedelay la dhahay macna raxweyn iyo yani aan ku dhahay marka xilka hadda markaas ay madaxweynaha ahaay dad sheekh qabiilshe ya mar iska bedeli dad bulsho tamay dhayana dadka macna raxweynta sidii baahilalka waaweyn balan diidin sidii jariirta oo kale horta hadii la fiiriyo siyaasadda Soomaaliya raxweynaa bato maanta dhaanta oo meel far badan ka jiraan oo laakiin dadka jariirta ma bahaystaan baahilalkaasayto laakiin waa dadka laakiin wali la ilaaliyo ma la dhakaro ilaa xaalka sidii in dareer saasa ka aragoyna waayo rag waaweyn oo al-shabaab kamid ahaayeen oo haddana xil haayeen roogan oo wasaaradda amniga kamid ayaan ama maamul goboleedyada kamid ayaan hadalada bulsho may sheegayna dawladda dhexe inta badan may inka hadal adeeday malkiin diidin in xilkaasi ay qabato ilaa may way ninkii hortis fuulay bo ayaga ahaay oo Shariif Xasan sheeg aadan bo waraxbiina ahaay horta inta badan bixililka higa dhanba ninka qabado iyo leebay kastay dad soo leebay sidii aan jecelina ninkan hadda Mr. Lafta Green Lafta Shaba waa asaga ayaga nafta shoo ka jeeda laakiin may la sheegay in asaga ka dhaladii gedo ina ka dhaladii la sheegay wana ka barbaari sidii aan hadalada bulsho ka dhigay oo faafaahin badan la ka bixiyay laakiin ka hadalay luuqada afka eelay ka hadalay afka kalena ka laakiin hadii uu gedo ka dhaladii ka barbaari wana ku kore wal baradi sidee koonfur galbeed uu madax an karaga ma dastuurka Soomaaliya uu saay marka ilaan sidii la socono may ogsoonay nin walba maamul goboleed markii la nin wal meel dhaladii inuu soo xilka qabad karaado laakiin sida aad oo kala hada jubada dhexe ayaa ka dhalatay marka nagadaas inaad gorow ama gaalka ay madax ka nagato hadii taas dastuurka dhikaw wal dib ma lahaateen Soomaaliyeed markaas isratibal dhikaraade misme run way laakiin horta hadaladaas ay inta badan baa dad weynaha eedii ka hadalhaayeen bulshada mar walba uu san bandhigayeen arrimaha noocaas waa tafaaruq iyo dhahaayeen qofka meel aan dhaladii aragooyta oo qof kale marka banaanka say ka sheeno laakiin ka dhikaw xil walaaga sayto waa wal oo yani ma ka jiraan dadkan eedii ka calaan arrimaha sayto kulen siyaasadda Soomaaliya ba saas amal turb maana qaabkaas walan dheelay marka may ku ogaad karaadeen nin hadii gobolkaasba inay dhalan baahada iyo dhibka jira iyo dadkaas ay horumarantiyo iyo dib u dhacasho may ku ogaad karaadeen marka ninkan hadii maadaama kulay laazima in dhaladii la mudo kulay laazima runtii wallahi arrimaha sayto may way dadweynaha may dhahlahaayeen barnaamijyadayna dambe iyo inta badan sanka falanqay doona gala ilaan waayo ninkan may waa nin cusub dadkana ma ka filadaan in asaga nagado balse inta badan la hadalhaayay in yani dawladda dhexe oo power adeegsadooyto in siyaasadda Soomaaliya wal badan ka bedelo rabta ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ka hadal qaaday shacabka dhahi ma ku weelo doono dhahi in aniga maana dadka dhabarkan in ku toogadan ama sida hadda uu soo taray madaxweynaha ayaa motion la kasheeni motionkaasi hata hadalada barkoomay ka dhigay in yani sababay mukhtaar row higshi dhan sidoo la socota ra'iisul baarlamaanka ama gadoomiyaha dawladda dhexe baarlamaanka ayaa hadallo badan la iska jijiiday 88 markii mooshinkaas ay tolo sheeni oo qabadii baarlamaanka tamar may ka baaqay in ninkaas la sadeeyo doorashadana ka qayb galo maadaama uu saxdaadii gobolka Soomaali yalla ka saari no may degay hotel oo kasi banaansan in villa Soomaaliya hadana may heer la deeray in dadkii mooshinka ka sheenay intii oo madaxweynaha ka sheenay ba in asaga un guduban ba dadkii dhanba la kareebay runtii xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya hanu zaid irkani niskayga shareertii isbuuciidan la dhaafay eedeeda iska mashquul sidii wal naga doonado toddobaadida dareeraha hadii la nagado marka kulay
wixii kaloo cusub ama isbedelada kale cusub ee hadda dareerana si falanqeyn doona hadii ilaahay raala ka nagado kulay maamuladii oo horay ahaayeen xabad iyo lansiibo haraqooyna badiya kulay laba maamul iyo sahirin oo kamid ah dadkii horay marka Puntland iyo Jubbaland Puntland iyo Jubbaland kulay iyaguna waqtigii doorashadii oo eedeeda sandhowta badiya hadda hadalad barko waliba adalkaada iska lahaaytay yahanuun shacabka may ka dheeweynay in يعني دورشة رسمي لأن كس فول لتا أما بكا كسحوك هايتا أن بوتلان كتب من جبلان لنس الجيسدة لشيغي أن درت لون مي هذا بركو أن لك تحشيغي برشيد إن إنكي أن هجامية أن جبلان أحمل مدوبة أو يعني أن مركي أن هذا عري أو كابك السعودان إن دي أمحنيا مركا أسجنا لنس السعود إز درنسين يا جارس قوي دتشيل الشرية لشيغي أو يعني قرب هالإسيو أو هذا runtii eedan qasiyaan balse dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ilaa hadda wixii ayada markaasayto ka soo wajahanta iyo ma intaas naftarshay qalad ma nagadaas maadaama maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan ninkan inuu seedo magaalo kale ka tirsanta wadan kale oo dadkaasna ila shiro kala hadalo siyaasadda Soomaaliya marka dhaqdhaqaaq walbo Soomaaliya ka dareer dhaqdhaqaaq walbo jeedi meelku koyta mal sheeg karo dhaqdhaqaaq walbo Soomaaliya ka socdo horta la socdo wali dhiyooy la ogya nin walbo game dheelo trubka dhanka walbo gadiido Soomaaliya la kala dareera qof walbo ya kala socda qof walbo kin sheegay walbo horta meel la dheelo game ka banaanka sabaxeel al ultima runtii ana aragana wixii ka sabax doonay ninkan hadda lan dooradii kolan aragana amin madoob saas la diiday wana ka qasbanaadii hilkii kuwadeen ka dareeriyeen hadana aragana kolan ninkan sidii dadkaas indhaqaw wixii ka sii kusoo kordhismo dadweynaha ayaa markaas araga doonayaan Soomaa kolan hadana wixii ka sii dambeeyay meel dhay Puntland iyo Jubbaland ka siigta hadaba dadweynaha may ku codsadaan shaashadaasayto mar walba fiirsada sidii idanka oo la socotaan waxay markaasayto ku soo kordhismo run ahaantii dadweynaha ayaa marka may dhaalahay wixii aramahan ku soo kordhismo may hanuun eed injaalaa in ay gadaysadaan idaacadaheena dambe iyo channeladeena dambe shaashadaasayto indhaha ka haayaan koleyto wax unbaa soo socda isbedel dhab ah ayaa ku soo socda Soomaaliya sidii anaga dan aragoyn siyaasadii hore oo Soomaaliya laga barnaamij ku tubunta qoyti kolen hadaba balan mayning ata shaashadaasayto sidii anaga la socon marka wal un bajiro kale wixii jiro unaba ogaada doon hadii la yiraahdo ka nagado falanqeynta in dambe iyo ka ogaada doontan wixii kala faahfaahin oo dheeraad ah hadii la yiraahdo ka nagado iyo doorashooyinka kala dareeran gudaha dalka Soomaaliya kale baarlamaankii ee motion ka sheeni madaxweyne farmaajo ka sheenan arintaas iyo go'aamadaas ay dib iyo kala naqdan kale heshiiyo ambadiya arinta hadda meel fayliya ka sii dareerta kale sidaas iyo nabadgelyo iyo sii rajeeyana daawadayaal arrimahaasna meel fayl ina ka dhamaadan iyo rajeeyana ilaahayna ku toobana marka khayr badan sii rajeeyana way dhamaantiinba daawadayaal kulanta dambe waxaan wanaagsan iyo siin lana assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh intaas yaa ka gabagabeen war wixii dalkii dalka caalamkan oo deeri warkan ay siin socodsiin anoo Mukhtaar Xasan Mukhtaar Kambicoos warkan war la mid intii kulma doona maysin lana sidaas iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh